فالنبي صلوات ربي وسلام عليه أعماش أبونا أكثر مركل ويديي وحو الشيء بر الوالدين وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحوي الله سبحانه وتعالى وحولدر دار ما يا إنسانك والد كيسا إنه أصم فله أو أوغاده حالكي أو لصعده هدين لبضل نوليهين ولي وحاتها يقف نصيب بدنه أبار السمي هدو مد نوليهين أبار السمي هدين دأدو دقارتنا وحوي دأ قارانا أبار السمي أو hadhihin hana karahsanin sidee ku ogaan kartaa inaad xaasib tahay adigu sidee ku ogaan kartaa inaad xaasib tahay waxaad ku ogaanaysaa xaasib inaad tahay an takraha ni'am Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi inaad nacdo oo aad ka xumaato nicmooyinka Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa uu siiyay inaad ka xumaato walaalka oo wax fiican helay inaad ka xumaato walaalka oo Ilaahay xoolo siiyay inaad ka xumaato walaalka oo Ilaahay mansib siiyay inaad ka xumaato walaalka Ilaahay inuu shuhro siiyo oo dadkii iyo khayrkii iyo qulubtooda Ilaahay u soo jeediyay nicmooyinka Allah subhanahu wa ta'ala oo diin ah ama dunya ah oo Ilaahay adoomadiisa siiyay inaad ka xumaato oo atrama iska day banaanku ka helay waxa uu sameeyay dad badan ku kahay ninka ragi waa kan xaaskiisa ugu dulqaata xitaa haday ku tirahdo kalimad aan haboonayn tusaalana waxa inoogu filan rasuulka kaleeyhi salaatu wassalaam Aisha iyo asaga ayaa maalin isir qabtay markaas uu nabiga wuxuu ku dhahay Aisha yaad raali ka tahay oo isku tagnaa atardayna bi Umar raali ma ka tahay markaas ay tiri maya Umar waad adag yahay hay aabaha raali ma ka tahay Abi Bakar markaas ay tiri ha kolka Abi Bakar loo wada tagay ee hortiisa la istaagay ayuu nabiga wuxuu ku dhahay Aisha tatakallamin am takallam adi ma hadlaayo bis aniga hadlaayo markaas ay waxay ku tiri Aisha takallam wala taqul illa haqqan adiga hadal laakiin been ha sheegin yaani nabiga Ilaahay qofna kuma oran